dadka badan guriga iskale wax walba si sax ah ay u sameeyaan laakiin mortgage-koodii ma dhaqaaqayo bil walba lacagta monthly payment on time ay ku bixiyaan laakiin xorriyadoodii waxay u jiraan almost 25 to 30 years ay u jiraan ugu qaladkaada iska malahid qofku tusay ma laha wax loo yaqaan clear path to mortgage freedom wax ku tusay ma laha and that's exactly waxaan dadka u sameeyno loo yaqaano fast mortgage freedom consultation story aan ku sheegay maanta story-gaas waa story gabar loo yaqaan Hamdi inay daawanaysa laga yaabo Hamdi waa gabar Soomaali ah oo single mother ah oo afar cunug haysato ما شاء الله gurigeed waxay iibsatay 2022 waxaana ka iibsatay Maple Grove gurigaas waxa qiimihiisa 570,000 interest marka lagu dhifto waxa almost 7% waxa hadda monthly payment waxa bixisa 3,580 even though large down payment ay dhigtay waa gabar mas'uul waaye waa gabar discipline waaye laakiin mortgage-keedu u dhaqaaqay waaye markay taa dhacday ayay soo wacday annagana soo wacday income-keeda ayaan review gareynay waxay tusnay waxa iyada ka yaabiyay waxay bixin lahayd 585,920 saashada ka arkaysaan So total loan kan wuxuu ku tagi lahaa 1,70,420. Loan kan wuxuu ka dhamaan lahaa 2052. Waxaan u sameynay game plan. Hadda mortgage-keedu waxay dhammaan doontaa 2032 ama aha 2052. Waxaana safgareysay interest ah 438,778 in interest safgareysay shad sakarkayso. Waxay safgareysay 21 years oo mortgage-keeda safgareysay. Now only waxay u bixinaysaa interest u bixinaysaa 147,145. in interest of bixinaysa or profit that Islam bagado hadii aad Hamdi oo kale your goal is very simple waxa rabtaa inaad hanti samaysto qoyskaada ka taxadarto aana joojiso lacagtan bangigu ka qaadanayo laakiin waxa ka hor istaagan arintaasi 30 years mortgage kan ayaa ka luminayo lacagtii hanti gurigaada u samayso qoyskaada u samayso so stress fara badan u baahnid waxa u baahan tahay wax loo yaqaan clarity wax cad ba u baahan tahay waxa u baahan tahay qorshe u baahan tahay waxa u baahan tahay wax loo yaqaan guide built around your numbers waa in lagu siiyo map oo basically ku saabsan adiga income-ka ku soo galo dakhliga ku soo galo and this is exactly waxaan u sameeyay hadda ku tusi doono maanta aan u sameeyay Hamdi u sameeyay this waxa loo yaqaan waa personalized financial blueprint aan u sameeyay hadii aan imaato exactly waxaad ka heli doontaan ku siiga consultation kan exactly number 1 waxaan ku sameeynaa wax loo yaqaan found money audit aan ku sameeynaa waxaan soo saaraynaa at least $500 to $2,000 a month oo lacag daadanayso meel ay ka baxdaa garanaynin madana markay dadka arkaan waxay dhahaan oo tan waa macquul gal number 2 waxaan ku sameeynaa wax loo yaqaan complete mortgage breakdown oo sameeynaa oo ah waxaan sameeynaa number 1 waxa ogaanaysaa wax loo yaqaan original loan amount-igi aad wax guriga ku qaadatay remaining balance kuwa haray start date-ki monthly payment-ka aad bixinayso interest-ka aad rate-ka aad ugu dhuftay iyo wax loo yaqaan total lifetime interest oo waxa loo yaqaan jira tip waa total interest percentage baan ku tusi doonaa exactly dadka badan guriga iskala tan oo kale wali isa qof saa ugu dhigay ma arkin exactly number 3 waxaan ku tusi doonaa your true payoff date maalintii guriga aad dhameen lahayd gabiyaanta sabaabin lahayd so dadka qaar waxay ku noqotaa inay 30 years ee mortgage-ka ku qaadan lahaayeen hadda qaar waxay ku qaadanaysaa between 5 to 7 years waxa laga yaabaa by 2030 2032 adeegkamkaada ku xiran tahay qoyskiina number 4 waxaan ku sameyn doonaa wax loo yaqaan side by side interest comparison baan ku sameyn doonaa so waxa arki doontaa exactly hadii maanta wadadan aad saaran tahay oo ah mortgage-kaada hadii inta lacagta monthly payment-gaas ka bixiso inta interest aad bixin doonto iyo game plan-kan ku siin doono inta lacag uu ku badbaadin doono ku tusi doonaa so typically dadka waxay badbaadiyaan around $200,000 to $500,000 badbaadiyaan dadka qaar way ka bataan up to $700,000 bay badbaadiyaan number 5 waxaan ku sameyn doonaa wax loo yaqaan 5-year wealth projection oo ah waxaan ku maab garanaynaa markii mortgage-kan aad baabi'iso lacag ba ku soo hari doonta loo yaqaan cash flow that cash flow-gaasi hadda waxay noqonaysaa adiga qoyskiina ayuu hanti u sameeyay markuu mortgage ka dhamaado so income-kaadana adaa controlayo inta bangiga lacag u dir lahayd waxa kale oo ku sameeynaa wax loo yaqaan net worth-kaada ay kor u qaadaynaa oo basically ah maadaama gurigan hadda aad baabi'isay oo ah lacagtaadii aday ku shaqeynaysaa interest uma shaqeynayso waxaan kaloo dadka u maab gareynaa wax loo yaqaan saving ka dadka waxaan sameynaa for example emergency fund aan sameynaa ay wax loo yaqaan opportunity funds si qof bilaadanka maskax degan u helo even tan waxa ku ogolanaysaa wax loo yaqaan investing power oo ah basically in aad hadda awoodo inaad ganacsiga bilaabi karto ama investment aad samaysan karto hadday tahay real estate inay tahay hadday tahay retirement ama hadday tahay any business aad u baahan tahay so after this session markii aad dhamaysato waxaan ku siinaynaa wax loo yaqaan professional PDF oo ah ku saabsan nambaradaadii payoff date-kaadii iyo found money summary-gi iyo wax loo yaqaan clear next step waxa sameyn lahayd exactly so this one wuxuu ku noqonayaa wax loo yaqaan personal mortgage freedom roadmap ku noqonayaa of course session kan free maaha of course waan ka xumahay free maaha waan ka xumahay sababtoo ah waxaan analyze garanaynaa wax loo yaqaan your entire financial picture dhaqaalaha dhan analyze garanayna sababtoo ah waqtigaada wax xushmayna anagu waxaan rabnaa waqtigan inaad xushmayso laakiin most dadka guriyaha iskale say u badan yihiin waxay lose garayaan average lacagtiga lose garayaan interest lose garayaan waa 200 ilaa at least minimum 500,000 lacagta lose garayaan this consultation kana waa wax macquul gal ah dadku ku charge garaynaa laakiin only hadda serious ka tahay oo gurigaadana ku bixi rabto 5 to 7 years fadlan na soo wac
voicemail noo dhaaf waxaan ku soo diraynaa calendarka linkan ku soo diraynaa halkaas ka bugaraysanaysaa dan waxaan ku sameeynaa aan ku dhisaynaa wax loo yaqaan fast mortgage freedom plan oo aniga adiga aan isla sameyn doono exactly isla sameyn doono ogow mid baan kugu darayaa wax loo yaqaan jira clarity-ga waa waxa markay ku cadyihiin xorriyadda meesha ka bilaabato nolosha wixii hadday ku cadeen oo aad garanayn meel ka bilawdo that's the problem haddaa rabto inay ku cadaadaan exactly maalintii mortgage free aad noqon karto ama mortgage-kaada aad baabi'in karto oo the last day kugu dambaynaysay adiga qoyskaada waxaad u baahantihiin exactly this plan insha allah insiga tagay assalaamu calaykum